qolada dhulkaas soo aadeen raadinayda inay dhulkaa hunguriyeydo waxa igu wallaahi igu billaahi igu tallaahi suma wallaahi waxaan u taaganaa qorigeennaan la taaganna runtaan idiin sheegaynaa dadkan aad u jeediin waxay ka cabanayaan in dhulkoodii la rabo in lagu darsado dhul kale haddii dowladdii Soomaaliyeed dhulkii ayada lahayd ee ganacsato ka iibsatay ama ay siisay ganacsatadii ayaa waxay ayagana isku dayayaan dhulkii dowladda dhul aan ahayn oo zonkaas ama areas ku yili inay qaataan oo ay ku darsadaan odayaashan oo ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan ee gobolka Banaadir agaarka saldhigga booliiska ee degmada Hodan iyo inta u dhaxaysa isbitaalka Dr. Shiine waxay sheegeen in dhulkan uu yahay dhul ay ayagu leeyihiin milkiyadiisa oo leeyihiin dhul dowladeed ahayn laakiin koox ganacsato ah ay rabaan inay dhulkii dowladda intay qaateen kana ku darsadaan oo yiraahdaan dowladda Soomaaliyeed iska leh siyaasad darteed waxay codsanayaan in dowladda Soomaaliya gaaraan hay'adaha cadaaladda iyo booliiska iyo cid kasta wax ka gali karta in arrinta wax laga qabto si gaar ah waxay u eedeeyeen xubno ka mid ah hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen in kooxdan ganacsatada ah ee dhulboobka wada inay ku garabsiinayaan in xoolaha ummadda ay dhacaan ama ay qaataan dhulkan waa 4 boos waxaana shacabkan laga iibiyay 1983 dowladdii dhexe ee waqtigaas jirta ayaa ka iibisay oo lacagta ka qaadatay dukumiintii sharciyeed u haystaan 4 boos ayaa nabaradu waxay keeniyeen 107 108 109 iyo 110 soo kana lagu dhuftay waa 24 lagu dhuftay 45 cabirkaas leeyihiin waa kuwan qaar ka mid ah dhaqanka oo si toos ah u abaaraya shakhsiyaadka ay dhibaatada ku qabaan iyo baaqi u dirayaan madaxda dowladda intaan qofoon boqolka gaaraya odayaal aanu nahay odayash Maxamed Hiraab aanu nahay noo soo wakiish waxay ku saabsantahay arrintan waxay ku saabsantahay ogeysiin dawladdan ogeysiineen iyo degniin qabiilka la sheegayo dareen lagu haysta dhulkayaga dhulkan waa kaas dokumentigiisa maxkamadana waa yaala faragambuulatay waa taasaa lagu cashuuray waa wasaaradda Soomaaliya 1983 sibdaraa maanta qabiilka dirleeyra inta baxaan dhahaan madaxdii dawladda ayaa dokumentana siinaysa ka soo qaadan waa ku habsanayna horta waxa ii sheegaya 30 iyo dhowrkii sano waxba lagu kala baqay waxay qoraga caaradii loo galma awood badnay laakiin sharci gaar u ilaalinay dawladnimadana dhowray waxaan dawladda leeyahay madaxda dawladda sida madaxweynaha federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha arrimaha gudaha booliis kulli waxaan madaxda ogeysiinay haddii meel magaalo madaxda dhexdeeda khalkhal u ka dhaco shacabku isqabsadaan dawladnimada ma fiicna 40 sano ka soo shaqeeyay ma fiicna haddii shacabku isku qabsadaan dhulka oo kala hagi weydaan madaxnimadiina khatar jirto dhulku yaala degmada Hodan waaxda October u dhaxeeya Dr. Shiine iyo saldhigga Hodan waxaan u sheegaynaa dadka sheeganaya dhulkaas dawladda u soo maray la sheegayo la leeyahay warqaday u samaysteen yayna ku tagsoomin annaga waxaan nahay beesha Maxamed Hiraab dad lagu qaldama maahin dad kale kuma qaldano waxaan rabnaa ayagoo dhib yar oon la isqoobin annaga waa nala yaqaan ciddii annaga dhulkaas doonaysa inay nala soo xiriiraan waxaan ku qalcaynaa faragobooladii Maxamed Siyaad Barawata cid aan ugu been sheegayna male 1983 ayaa dhulkaas lagu soo baxay oo ku soo baxay qolada ku soo baxaana ka iibsan been maahan dadka dawladda inta la hoos galaan waxaan jirin dulunka beenta ka dhaadhicinayo la dhulaa halkaan noogu yaala warqad dawladdana qiimaha iyo sharafta uga ciyaaraya waxaan leenahay digniin annagu laba maahan beesha direed nimanka ah waxaan u digaynaa inaanan isku dhicin siiba nimanka ganacsatada ah laba yiraa diroo dhan dir waa walaalaheen waa dad islaama waa dadaan isjecelnahay kuwa shakhsiyan ku abtirsada jufada la iima sheegin laakiin qolo ay ka yihiinba qolada dhulkaas soo aadeen raadinayda
inay dhulkaa hunguriyeydo waxaa igu wallaayo igu bilaayo igu tallaayo suma wallaahi waxaan u taagannaa qorigeennaan la taaganna runtaan idiin sheegaynaa maxamuud hiraab ciidanay leeyihiin ma rabno annagu inaan qaldanno waxaa lagala kiciyey wakaaladii biyaha waxaa nagala kiciyey taleex waxaa nagala kiciyey goobo badan waxaa nagala kiciyey cuuryaameyn oo aan ka mid ahaynoo warshadda caanaha nagala kiciyey in badan dawladdan dulqaadayna dhulkaasuna dhul dawlow ahaa haddaanan annaga lahayn dhulkan kama hadalneen waax odayaalka ka mida beesha maxamuud hiraab kaasatan maxaa camal baana runtaan idiin sheegaynaa nimanka ganacsatada ah raadinaya dhulkaas digniin mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan inkaga digaynaa inaanna ku kalsoonin meeshaan maanta waxaa ku qabanay shir sareed oo ku qabanaynaa shirkaasoo macnaha ka kooban 4 boos oo ku taalla oo ay doctor Shiino isaldhigga u dhaxayda dhulku waa badan yahay laakiin 4 boos waaye oo doctor Shiino isaldhigga u dhaxayaan waxaa ka digaynaa digniin horta waa la baxshay waxaa ka digaynaa nootaayoyin ka digaynaa waxaa ka digaynaa maxkamadeed horta ay yaaliin ay warqadaas ay yaaliin oo dacwadaas ay taallo waxaa ka asnaa nootaayoyinka inaysan arrintaas ku kaasoomin inaysan dhulkaas wareejin inay dhulkaas dhul hawshii taaginta ay tahay inaan dhulka waxa uu hadlayna meesha ka muuqato dhulkaas waxaa ka rabnaa inaysan nootaayoyinkaas ay isku kaasoomin wareejin ka muraanfacoon ka munaashaqoon waxba ay iska qaban waa meeshaan shir jaraa'id ka soo jeedinaynaa baaqa koowaad waxaan u dhiibaynaa taliyaha saldhigga hodol baaqa labaad waxaan u diraynaa guddoomiyaha degmada hodol baaqa saddexaad waxaan u diraynaa madaxda ka sarraysa oo howlgallada ee boliiska baaqa afaraad waxaan u diraynaa madaxweynaha baaqa shanaad waxaan u diraynaa ra-iisul wasaaraha intaas waxaan ogeysiinaynaa dhulkan inuu dukumentigiisu dukumenti saxa oo maxamed siyaad barraaho 83 wareegay inuu yahay dhul shakhsi yahay dhul dawle ahayn maxkamadaha yaallaa ciddii dacwo qabta wakaa sharcigiisoo kumbuda ciddii dacwo qabta oo dhulkaas sheeganaysa ama raadinaysa sharciga hana laga tagto wixii sharci darraa sharcigaan dhowraynaa wixii sharci darraa oo meeshaas ka yimaada waxay aabba leedahay taliyaha saldhigga hodol iyo guddoomiyaha degmada hodol ma u qaranayno iyo qowlaysatada lacagta wadata oo dadka inay boobto u soo shaqo tagta ma dhici doonto annagu waa xerooyin badan waa ka kacna ma dhici doonto kan kuwii lagu degdegi jiray ma aha dhulkaas 83 yaa la wareeji gacantii koowaada wareegaa ku jiraa annagaa degan annagaa ku nool ma garad sharcina u leh dukumentigiisiina haysanna ciddii dacwo loo qabtaa waa ka dacwo baxaynaa waxaan uga digaynaa inaanaan uga kici doonin guryahannaga waxaan ka kacayna waxay ahaayeen dhulka danta guuda waa ku dhimahaynaa waxna waa ku dhimayaan insha allahu tacaala haddaan la joojin dadka hindadaadda ku socda oo leh macallinkiiyaan wadannaa iyo noolo hoostaan wadannaa waa eedi doonaa ha ka joogeenaan leenahay waa uga digaynaa haddaan nahay beesha maxamuud hiraab qaas ahaan waxaan nahay beesha maxaa camal maalmihii la soo dhaafay muqdisho gaar ahaan degmada hodan qeeldhaanteeda waa badan tahay oo dhinaca dhulka ku saabsan cabashada laga qabo hay-adaha ammaanka ee kooxdan ganacsatada furinta u sameynayana waa ay korortay waxaa muhiim ah dadka Soomaaliyeed gaar ahaan ganacsatada ilaahay hantidiisii inaysan shacabka ku xadgudbin dowladdan in arrinta wax ka qabato aad waa mahadsantiin